بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهرين وأن سلام يا مدحوينها وعاوة مرتي إنه وحنا الله إلهي هكوبو قدي هذه دعوة كلبا أنا شهادة دي كل شهيدنا إلهي هسيو شهادة دودا مدحوينها سفي عن وقاهد لي هلجنك وهلجن حقه inagu waajiba dhammaan Soomaali haddaan nahay inaan u wada istaagno kuna wada garab istaagno niyad iyo qalbiba waa idinla jirnaa waana ka qayb qaadanaynaa diyaarna waa u nahay madaxda golahan ku jirta iyo shacweynaha Soomaalida goorta u soo jeedo oo dhageysanayana dhammaantood habeenkii dhaweydna runtii waxay muujiyeen taageero iyo niyad sami waana sida madaxweynuhuna u yiri horana madaxda uga wada hadleen waxa uu halgankani la mid yahay halgankii gobonnimo doonka Soomaaliyeed xornimo iyo gobonnimo aynu gumaystaha guracan midabkeena leh diinteena qaldaya aynu kala soo horjeedno weeyaan waa taageerayna waana taageersanahay mar walba af iyo adinba intaasan ku soo gabagabeynaya caawa waxaan doonayaa inaynu siino madaxda nagu cusbayd oo Ra'iisul Wasaare Saacid u horeeyo waadna hasintiin madaxweynaha ku garab taagannahay waana kula jirnaa waana la shaqeynayna madaxweynaheena iyo dhammaanteen ummadda Soomaaliyeed waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Ra'iisul Wasaare Saacid بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام هيا دمان مدحدا iyo ikhyaarta kala duwan rag iyo dumarba leh oo aan caawa halkan ku kulansanahay waana ku faraxsanahay inaan wixii aan maqlay oon ka maqlay labadii ikhyaar oo igu horeysay gaar ahaan madaxweynihii Galmudug oo uu warbixinta naga siiyay sidii wax u dhacayeen waxaan rabaa si kooban inaan u iraahdo Allah u naxariisto intii dhimatay maanta iyo ka horba inta dhaawaca ahna Allah u boogadhayo taa haddii aan ka tago waxa weeye dagaalka maantayto ka socday laasgacamay iyo ceel la helay waa isla dagaalkii 10 sano ka hor 13 sano ka hor ka socday madaxtooyada dusheeda 6 sano ka socday Soobe bilo ka horna ka socday qaybo ka mid ah Xamar waa dhaqaaqay maanta wuxuu marayaa laasgacamay iyo ceel helay intaas laftigeeda kaliya waxay ku filan tahay sidii uu u hadlay madaxweyne qoorqoor marka aanan gaarin inta kaliya ayaa waxay ku filan tahay meesha uu ka bilowday iyo meesha la isku haysto waxaan si kooban rabaa inaan u iraahdo noloshu waa halgan ma aha inta la yimaado oo wax la iska cuno in laga tago ma aha waa halgan ama aad sharaftaada iyo karaamadaada ku dhisaysid ama aad ku adkeynaysid wixii ku dhisan dadkana waxa ku soo beegma ama isku danta ah ama isku community-ga ama isku dawladda ah hadba meel baa shaqadaas kaga soo beegantaa jiilka maanta jira waxa ku soo meel kastana waxa taala fursad meel la oran karo nabad baa jirto fursadu nabaday ku badan tahay ma jirto fursadu waxa dhici karta karaamadaada iyo sharaftaada iyo jiritaankaaga marka aad calankaaga marka aad daafacaysid bay markasta badan tahay khataraha meelaha badan oo ku jira khataraha badan baana runtii fursada badan leh marka waxaan u hambaliyeynayaa dadka jiida hore jooga gaar ahaan hadda madaxweyne qoorqoor oo nugula jira hawshu inay kugu badan tahay waa u jeednaa dhanka kale ka fiiri fursaduna waa badan tahay ninkii maantayto ama gabadhii maantayto ku shahiida ama shaqo dheeraada ka qabata nolosha dambe oo soo socota inaan adkaanayno shaki igama jiree way u dhadhami doontaa dadkeeday aqoonsi ka heli doontaa ama ka heli doonaa waxay noqon doontaa wax lagu xusuusto oo asagana jiritaankiisa nolosha inta la yimaado in laga tago waxaa ka fiican inaad muddo dheer ku nooshahay micnaha ma aha inaad sankaaga neefu ka socoto inaad karaamo dadkaaga ku leedahay for example 64 xalan oo laga shahiiday maanta waa nool yahay dad badan baana bardun waqtigiisu 64 ninkii gaashaan qaad ahaa maanta geerigu u badnaan lahaa
laakiinse wakaas waa nool yahay xalane iyo boqolaal sano kuwo ka hortoo dhintay kuwii oo kale fursadaas qofkii helaa waa nasiib badan yahay maahe ma nasiib xuma waa kugu hambalyaynahayaa madaxweyne qoorqoor iyo inta lamidka ah oo lineka hore ku jira ma inaad fursad u hesheen inaad lineka hore ku jirtaan waa qabaa in badan oo gadaal iska joogta ama kusii socota ama idiin imaan doonta ama ilaahay qadaray waxa ay ka dhihi doonaan inaad ka nasiib badan tihiin maahe kama nasiib xumidin noloshu waa halgan qaybta idinkaga soo waqtigiinina ma dhaafaysaan qaybta idinkaga soo beegantayna waa qayb sharaf leh waa qayb runtii taariikhda iyo bini aadamnimadaba micno ku leh waa qayb dadkiina iyo dalkiina maanta waxa la isku haystaa waxa weeye calankaygu waa buluug iyo calankaygu waa madow si kooban haddaan u naahno waxa la isku haystaa soomaaliya qaran bay noqonaysaa iyo qaran ma noqonayso waxa la isku haystaa saan rabaan kaa yeelayaa oo gurigaaga iyo carruurtaada iyo xaaskaagaan kuu dhaafaya iyo maya karaamadayda iidah isku soo koob qofkii intaa difaacda wiil iyo gabarba waa ku sharaf badan yahay noloshu waa socotaa qofna la dayn mahayo qofna waxa weeye weligii iska noolaan mahayo waxaa sharaf iyo karaamo leh ninkii qofkii wax muuqda ka qabta nolosha wax muuqdana dadkiisa iyo dalkiisa ugu taga hambalyaan leenahay allaha u naxariistaan leenahay intii dhimatay haddaanu ka dambayno lama yaqaano inaanu annagu sariirta dusheeda ku dhiman doono oo aanu kan lineka hore taagan inaanu ka cimri dheernahay cidna ma hubto laakiin waxaa isaga la hubaa inuu karaamo iyo sharaf ku dhimanayo intaasuuna dheer yahay waxa weeye waa diyaar baanu u nahay inaanu idin join garayno diyaar baanu u nahay magaciina iyo karaamadiina iyo wixii aanu idin geysan karo inaanu idin geysano waa idin aqoonsannahay intaad naga khatar badan tihiin inaad nagaga sharaf badan tihiin allaha guusha noo soo dedejiyo aniga shaki igagama jirto in soomaalida iyo iraadada shacbiga soomaalidu inay guulaysanayso anigu dadka shakiga ka qaba maahay shaki igagama jiro laakiin waxaa hambalyo iyo nasiib dheeraada ah kuwa keenahaya guushaas ilaahay ha nagu daro idinkana waxa weeye allah idin fududeeyo hawsha iyo dhibta aad noogu jirtaan qarannimada iyo ummadnimada soomaaliya iyo annaga idinla hadlayna aad noogu jirtaan codsigii ahaa furinta ha la yimaado hana laga soo qayb galo waa noo wada dhahan yahay waana aqbal baan kaga jawaabnay waa mahadsantihiin waxaan diidahayaa dad badan oo saan u iri si ka badan u dhihi kara ama ka qurxoon inaan waktiga ka qaado waana idinkaga mahadnaqahayaa hodan iyo cabdirashiid oo fursaddaa noo diyaariyey iyo ikhyaarta badan oo fadhida oo aan u jeedo inay wax wanaagsan dhihi doonaan allaha nagu hanuuniyo wanaagga dalkeenna iyo dadkeenna xorana insha allah degdeg baan u arki doonaa kuwa horseedayowna waa mahadsantihiin waa ka baxay الله يفتح عليك عاد بقى ما أنت رئيس الوزراء إلهي هذا البلاغة يقول النمله بكسيء سيد لودي هرانا قف أمر ما يساعد كفي عنه وديه كرو هذا نوع حنكسر دوينا يا قرق وحين قرقور نوع حفلا يا إنه لكتيس كل راح يساني يسوع قبل إنه هذا الكاس ومقل هايو إنه نحوار نوصل القادم دون سببته أهرنتي بعد ما أبهنتين وركا سنة المقشان قدامي محمد مرسل بنسينا يا كدنا لا وقفوا كلام سيد وقفوا كلام وقدر يايو سلطان عبد القني iyo رئيس وزراء علي geedi iyo walaalkii cabdikariim waa siinaya adoo iga raaliya madaxweyne qorqor oo igu dul qaadanaya in kastoo baran saas ay ahayn inaan ku fasaxno qorsho ahaa marka ku soo dhawow gudoomiye mursal بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لمانتين وسلامتين وحان سيقارة وسلامية مدحوين قرقور marka hore waxaan leeyahay waxaad ku jirtaan jihaadka aad ku jirtaan annagana waa idinkula jirnaa shacabka Soomaaliyeed guud ahaan jihaadkaasi way ku jiraan niyadooda iyo quluubtoodana idinka idinla joogtaa intii jihaadkaasi ku shahiidayna ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo inta ku dhaawacantayna soo kabasho degdeg ah ayaan ilaah uga rajaynaynaa mudane madaxweyne
annaga waxaan aaminsannahay shacabka soomaaliyeed maanta dhammaantood yacni waxay aaminsan yihiin in laga badin karo oo lala dagaalami karo laga sifayn karo soomaaliya qof walbana maanta wuu ku qancay dagaalkaasi ka bilowday dhinacaas hiiraan ilaa hadda socda oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya hogaaminayay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida soomaalida waxbay ku barteen waxay garteen in laga adkaan karo khawaarijta in la iska celin karo marka waxaan aaminsannahay in la guulaysan doono intii dhimatay mar labaad ilaahay u naxariisto inta kalena dee ilaah waxaan ugu rajaynaynaa soo kabasho degdeg ah inta dhaawacantay aad iyo aadaan u mahadsan tahay waktigaaga oo warbixintaada iyo aadna siisayna waa ku mahadsanta okay waa mahadsan tahay khayr allah ku siiyo waa soo aruursay kadibna min hal daqiiqa waxaan siinayaa prime minister geedi iyo sudan qorane بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan ku jirta khadka waa salaamaya waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu gaar ahaan waxaan salaan gaara siinayaa madaxweyne qoorqoor madaxweyne salaan kadib waa kaaga mahad celinaynaa warbixinta aadna siisay ee dhiirigelinta leh ee farxadda leh waxaan u tacsiyeynaynaa intii ku dhimatay mar hore iyo wiilashi ku shahiiday maanta ee isu dhigay cadowga ee madaxda difaacay ilaahay jannada ka waraabiyaan leenahay intii dhaawacantana allaha u boogadhayo waxaan aaminsannahay inta soomaali meel kastoo joogto dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay dagaal kula jirtaa khawaarijta in laga sifeeyo dalka soomaaliya cidda aan dagaalkaas ku jirinna ee aan qayb ka ahayn xataa ugu yaraan qalbiga aan ka nacbayn khawaarijtana inay iyada taan aaminsana marka waa la kala baxay ummadda soomaaliyeed waxay heegan u tahay inay dalka ka sifeeyaan cadowgan baabi'inaya dadkeenna iyo dalkeenna diinta islaamkana beenta ka sheegaya oo iyagu cadow ku ah intaas kadib waxaan rabaa inaan mar kale geesinimo geliyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada qalabka sida uu hogaaminaya dagaalka ku hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo goob dagaal fadhiya muddo dheer waan aaminsannahay haddii la qiimeeyo dalka ra-iisul wasaare codkaada uu gaaban yahay sidee la ii maqlaa hadda waxaan aaminsanahay haddii la qiimeeyo dalka dagaalada ka socda waxa af ingiriiska lagu yidhaahdo khawaarijtu waxay marayaan waxa af ingiriiska lagu yidhaahdo waa the kick of the dying horse haraantida faraska dhimanaya waa naflacaari neef gowracangeeda kama waabto waaye iyagu waxay ku shaqaynayaan guulaha ay gaarayaan ciidamada dagaalka ku jirana waan arkaynaa oo ay hogaaminayaan madaxda kala duwan been ayay ka sheegayaan waan arkaynaa miidiyada dad baa cadowga taageersan iyagaana cadow ah kuwa taageersano waxaan arkaynaa beenta laga sheegaya ceel la helay oon arkayna nimanka sida loogu baaba'shay meydkooda tuban oon ognahay waxa ku gaaray khasaare ognahay ama ha ahaato dagaal kama dhicin laasgacmay waxay aheeday qaraxii fulanimada ahaa ayuu ahaa wiilal baana isu dhigay oo ku shahiiday oo jannada ku tegaya waad maqlayseen ilaahay ha u booqdho inta dhaawaca intii dhimatana allah u naxariiso laakiin ma qalbi jebin karaan waxaa noocaasi cadow jabay ee naflacaari ah in naloo buunbuuniyo ee la yidhaahdo waa soo rogaal celiyeen iyo waxbay qabanayaan iyo dhulbay ay dib u qabsadeen waa been kuwa beentaa abaabulaya buunbuuninaya iyagaa al-shabaab ee horta loo aqoonsado hay-adaha amniga iyo shacabka soomaaliyeedna ha ogaadaano intaas horta waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo ciidamadeenna sida uu sheegay madaxweyne qoorqoor maamulkaaga madaxweyne iyo shacabka galmudug dowrka ay ku leeyihiin iyo madaxda labada aqal ee baarlamanka iyo xukuumadda iyo maamul goboleedka iyo ciidamada qalabka sida madaxdooda
dagaalka goobihiisa wada joogana waan arkaynaa waana hambalyaynaynaa borobaganka iyo beenta ummadda laysaga hor keenayana cid dheg u dhigaysa ma jirto waxaasoo dhan waxaan rabnaa in ummadda soomaaliyeed ay dhegaha ka xirato sidii lagu cirib tiri lahay cadowgaas aan ka wada shaqayno baaqaagii ahay hal yimaado goobaha dagaalkana waa ballan waa ku ballansannahay mas-uuliyiinta ku midaysan golahan ood og tihiin shaqooyinka ay idiin hayaan muqdishoan ku wada ballansannahay goobaha dagaalku waa badan yihiin waana badan doonaan si loo cirib tiro khawaarijta waana la wada tegayaa weliba waxaan ku dari lahaa haddii muqdisho la isugu tago goob kastee dagaal ka socdo mas-uuliyiin soomaaliyeedoo u dhan inay wada tagto aan deegaanka dagaalku ka socda iyo maamulkiisa iyo shacbigiisa iyo ciidamada aan lagu hadlayn sidaasaan ku tali lahay goob kastoo dagaal ka socda inaan tagno inaan shacabka geesinimo gelino ciidamada geesinimo gelino qayb ka noqono guusha ummadda soo hoynaysa aan ku tali lahay aad iyo aad aan u mahadsantihiin waana idin wada salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan tahay madaxweyne qorqoor raalli ba ahaanaysaa caawa runta hiilkaaga iyo gurmudkaaga meesha loo soo buuxiyey saaxiibada oo dhan baa soo galay raiisul cabdiweli waa ii muuqdaa madaxweyne waara waa ii muuqdaa sheekh cabdiqani qorne baan siinayaa kadibna waxaan kusoo gabagabeynayaa madaxweyne cabdikariin guuleed iyo madaxweyne waare iyo ra-iisul wasaare madaxweynaha hore puntland cabdulla cali gaas marka sheekh cabdiqani qorne kusoo dhawow qof kastana waxaan ka codsanayaa 2 daqiiqo inuu qaato sababta madaxweynaha inaan su-aalo iyo hadal ku furi doono fili aan namayn laakiin markaa u timaadeen waa khasab inuu idin maqlo oo aad warkiin gaarsiisaan soo dhawow suldaan سلطان عبد الغني قرني سلطان كنت دير جروب باي وقتها كفاية سنة السلام عليكم السلام عليكم وبهذا لي يمضى الرين بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينه أحمد كاري قرقر وآد بنكو سلامية سلام لمدا صاحب بدي مدي كو سلامين ورنتي قلبي كسو قضي هوش أتكو جرتان وناكسن شرعي قرن ماذا dadnimada ah ee kartida ah ee geesinimada ah ee taariikhiga ah waan la wada jirnaa waana taageersannahay waanan idinku garab taagannahay imaanshaha hadday noqoto iyo kasoo qaybgalna si walba oo xaaladdu ay tahay diyaar bay u yihiin inta ku maqlaysay inta ku maqli doonto biidnillahi tacaala oo dhiig soomaaliyeed uu ku jiro nimankan khawaarijta ah waa daahiro caalami ah oo adduunka dhibaato ku wada hayso annaga gaar nooma aha waana sida xagaayo oo wax ka feeris dhow oo ka fool nugul ma ay jiraan bal wax ka fulaysan lama abuurin waa nimankaas waxa weeye ii sheeg aan muwaajaha idinku hor imaan karaynin dalal annagoo kale ah oo markii hore nasiino qabi jiray bay noloshii iyo nasiinadiiba u diideen ciraaq baa ka mid ah afghanistan baa ka mid ah algeria ka mid ah waddamadan la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa ii sheeg maqrib alcarabi ayaa ka mid ah markii loo soo jeedsaday oo la isugu tegeyna oo shacabkii iyo dowladihii dalalka ka dhisnaa oo isku duuban ay waajaheeyeenna meelay mareen waa la waayo kama inaysan carrada soo marin oo kale ayay noqdeen ama carabtu waxay tiraahdo atharan bacda cayn yacni raad bay noqdeen kadib markay ahaayeen wax muuqdo oo la arkayo ayaguna inay saas kale hadda noqdaan baan rajaynaynaa hal bishaaro baan ka soo qaadanaya axaadiida nebiga salawaatullahi wasalaamu calayhi uu ku tilmaamayo nimankan iyo dagaalkoodii iyo waxay yihiin halka bishaarana waxay tahay inuu yidhi ummaddayda waxaa ka iman doono waxaa ka dhexdhici doono ikhtilaaf iyo firqo iyo kala tag waxaa soo bixi doono qolo yuxsinuuna alqiila wa yusii'uuna alficl hadalkay qurqurxiyaan hadalkay wanaajiyaan aayado quraan ay ku kakabaan axaadiis nabi oo aanan daliil u ahayn waxa ay samaynayaan bay waxa weeye dusha soo saartaan wa yusii'uuna alficla ficilka laakiin waa xumeeyaan oo waa fool xumeeyaan oo dhaqan xun bay la yimaadaan wax islaamnimada ku fog bay la yimaadaan wax dadku ay la qarracmaan bay ku dhaqmaan buu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu tilmaamay wuxuu ku tilmaamay quraanka inay akhrinahayaan oo uusan xakaraxmaha u dhaafaynin yamruquuna min ad-diin muruqa sahmi min ar-ramiyya diinta waxay uga dhaxbaxaan sida fallaadhu ay uga dhaxbaxdo ugaadha oo aysan dib dambe ugu soo noqonaynin buu yiri wuxuu yiri marka nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi hum sharrul khalqi wal khaliqa inta abuuran insi iyo aadana iyo adduunye ah ayaga ugu shar badan buu yiri wuxuu yiri tuuba liman qatalahum wa qataluhu waxa laanta janna helahaya qof laayay oo dilay iyaga ama qof isagu iyaga dileen yadcuuna ila kitaabillahi ilaahi kitaabkiisa dadka ugu yeerayaan walaysuu minhu fi shay kitaabka ilaahina waxba kama ay aha man qaatalahum kaana awlaa billahi minhum qofkii la diriro oo la dagaalama baa ilaahay ka xiga buu yiri
marka horta bishaaradaas iyada waad qabsanaysaan oo inta meesha ku jirta inta nool iyo inta dhaawacan iyo inta shahiiday iyo inta hadda u soo xaabxaabsanayso annagu aan ka mid nahay bishaaradaasa horta noo taallo waxa axaadiisoo ka hadlaysa marka la sheegana waxa weeye caaw wax la soo koobi kara ma aha ninkii la yidhaha imaamu axmed bin xambal iyo culimo kale waxayba u dhoweeyeen inaysan islaamnimadaba ku jirinba marka dadka ahlu sharka dadka la dagaalamayo kuwa la dagaalamaya ugu khayr badan maadaama iyagu ay dadku ugu shar badan yihiin idanka ilaahay guushana waa laga helahayaa ilaahay subxaana wa tacaala ha naga siiyo guusha libineed waanan intaasaan ku gabagabaynaya asalaamu calaykum madaxweyne cabdikariin guule miyuudka iska saar madaxweyne adalaaliya okay usoo noqonaya ra-iisul wasaare cabdiweli maxamed cali gaas kusoo dhowow excellency She got all us girls. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام يا دمانتين odayaashoo dhan si gaarna u salaamaya madaxweyne axmed cabdi kaariye odayaashii lagu horreeyey ayaa runtii dhameeyey runtii aragtida yadana ayagaan la qabaa sida uu sheegay ra-iisul wasaare geedi nimankan waktigooda uu iska dhammaan doona insha allahu waktiaan dheerina soomaaliya way dhaafi doonaan waana siduu yiri oo waa the last kick of a dying horse weeye marka adduunkana yani hadda maahan waqtiyo badan ayaa dadka noocaani ay soo jireen meelay hadda taariikhda ku guuleysteen oo permanently ay ama taariikhda ka mid noqdeen ma ay jirto kamikazigii jaban ayaa ugu horreeya wax noocaana sida noocaana u dhaqma oo qaraska xoornimada ah oo shidada ah oo marka iyana maanta waa la ogyahay sida de jaban ay tahay yani dad ahaan iyo dhaqan ahaanba marka madaxweyne intii halgankaas ku dhimatayna allah u naxariisto inta dhaawacan allah u boogadhayo idinkana qalbiyan iyo niyad ahaan iyo ficil ahaanba dadka soomaaliyeed meela joogaanba waa idin garab taagan yihiin annana waa idin garab taagannahay hilyahoba waxaad nooga baataana diyaar baan la nahay marka guuleysta ayaan idin leeyahay hadalka ma dheeraynayo allah idin guuleeyo waan guuleysan doontaa insha allah waxa weeye idinka uun aan laga daalin oo laga niyad jabin oo yani momentumkaas hadda bilowday oo wanaagsan oo sida fiican u socda in lagu sii wado dadka soomaaliyeedna intii waxaan isleeyahay 90% waa ay taageersan yihiin inta kale oo weli shaka ku jirana dabcan waxaan isleeyahay waqti aan dheeran iyana niyaddooda way isbedeli doontaa waanad guuleysan doontaa waa mahadsantihiin